shiru jiraayadu ay maanta ku qabteen gudaha magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn mas'uuliyiinta ururka Ayatiin Development Foundation ayaa waxay kaga hadleen dardargelinta hawlaha horyaala ururka Ayatiin iyagoona dhinaca kale ugu baaqay inay ka soo qayb qaataan dhamaystirka hawlaha si shacabweynaha ku dhaqan gobolka Cayn iyo waliba sidoo kale qurba joogta Soomaaliyeed ku dhaqan dalka dibadiisa hadaba waa kuwa Sheekh Mukhtaar Axmed Xaaji Faarax Sheekh Cabdirashiid Xaaji Samatar iyo waliba sidoo kale qaar kamid ah waxgaradka deegaanka Buuhoodle ugu horeynba goobtaasi ka hadlay waxaanu ku suganahay xafiiska ururka Ayatiin Development Foundation Buuhoodle waxaanu kan shirka jaraa'id ugu qabanay in maalmahan iyadoo la waday wacyigelintii mashaariicdii ururku gacanta ku hayay oo ay ka mid ka ahaayeen reportka dhimirka cusbitaalkii dhimirka wadadii weyneed ee Main Street ka ahayd jaamacadda iyo agoonta iyo jeelkii oo dhammaan u dhismahoodu socday laakiin hadda loogu hormariyay qabyatirka reportka waxay u dhiman yihiin in maalmaha wacyigelin loo wada reportka isagu mashruuca koowaad hadeer qaatay ama laga dhigay haddana la bilaabay dhaqaale ururintii reportka loogu ururinayay oo inta qabyada ama ranwayga ha noqoto ama dhismayaashii kale ha noqoto ama wadada yar isaga magaalada isku xidha ha noqoto ama siligii lagu wareejinayay in dhaqaale ururintiisa maanta gobolka Cayn degmada Buuhoodle ay ka bilaabatay nawaaxigeedana insha Allah taala dhawaan loo kacayo magaalada dibadda sidii horeyba looga ururiyay wax looga ururin doono hadii alla idmo aanuna ugu baaqayno dadweynaha gobolka Cayn in hadii alla idmo hawsha la isu taago oo qof waliba mas'uuliyad gaar ah uu iska saaro waxaan joognaa xaruntii ururka Ayatiin Development Foundation Buuhoodle waana ururkii u taagnaa dhamaystirka mashaariicda qabyada ah ee deegaanka sida uu sheekhu sheegay waxaa la gudagalay in la ururiyo dhaqaalihii lagu dhamaystiri lahaa mashaariicda qabyada ah oo ugu horeeyo reportka waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo muxsina gaar ahaan dadka deegaankan u dhashay Buuhoodle iyo nawaaxigiisa ama gobolka Cayn iyo eeriyadiisa inay ka qayb qaataan maraafiqda caamka ee dadka ka dhaxaysa waa meelaha public ah dadka ka dhaxaya lama kala xigo reportka dadka oo dhan uu ka dhaxaya dhimirku dadka oo dhan uu ka dhaxaya wadada waa la wada isticmaalaya waa la wada maraya jaamacaddu deegaanka oo dhan bay ka dhaxaysaa agoontu dadka oo dhan bay u dhaxaysaa jeelkuna waa la mid marka walaalayaal cid gaar ah oo khaas ah ma leh mashaariicdan waa mashaariic caam ah waa mashaariic aynu wada leenahay waxaan leenahay aan ka wada qayb qaadano rag iyo dumar saqiir iyo kabiir qurba joog iyo guda joog waxaanu codsanaynaa waxaanu ku boorinaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda u dhalatay gobolkan aan imika taaganahay ee Cayn in laga qayb qaato waxaanu kaloo sheegaynaa inaanu hadda waqtigan la joogo la bilaabay qabya bixinta mashaariicda ka qabyada ah deegaanka oo loogu soo hormariyay reportka iyadoo oo la bilaabay reportka maanta hawshiisii lagana bilaabay gudaha magaalada Buuhoodle laga bilaabayo deegaamada ku hareeraysan deegaanka la xidhiidha Cabdiraxmaan Jaamac Xaashi Cabdiraxmaan Wadani